iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa agaasimaha guud runtii wax badan kama tegin muddo waxaan ku hawlanayn inaanu samayno shuruuc cusub aan shuruuc cusub urino oo hagaysa khayraadka dabiiciga hadday petrol noqoto iyo hadday macaadin noqoto wax badan waxaan maqlaa wasaaraddu iyadoo shuruuc lahayn shuruuc dejisnayn ayay heshiisyo gashay shuruuci way jirtay waynu lahayn waa shuruucdii ay dowladihii hore ka dhaxalay laakiin sida dastuurka noqonayo marka aynu mid inagu aynu samaysano markaas maynu ku guuraynaa markaas mahamiyadda uu leeyahay shuruucdani annagoo ka duulayna waxaanu markaa aanu hawlgelinay looyaro caalamiya oo dalka Norway u dhashay company SVW la yiraahdo in contract la galay oo nagala shaqeynaya muxuu ahaa qoraalka shuruucdan maanta aynu halkan ku falanqeynayna aan ku casunnay muxuu ahaa wasaaradaha arrimahaasi ay xuseynayaan oo ay hormood ka tahay wasaaradda maanta iyo tamarto iyo wasaaradaha kale qadiyadaas magaraysa ay mas'uuliyadeeda yeelanaya iyo baarlamaanka xeer dejinta ahaa maanta golaha wakiilada guddiga khayraadka dabiiciga xeer dejinta u gudbinaya marka xeerkii la sameynayo gudoomiyihiisii iyo xubno kamid ah oo halka maanta nala jooga wasiirkii awqaafta oo runtii siyaasadda ama jahaynta oo really lagu sugay ayada quraan inuu isaguna moogta inoo taabto inoo fasiro marka la guda galo naqashada la guda galo ayaan ugu yeernay aadna waa muhiimad inoo yimi runtii ahamiyaddan uu workshopkan leeyahay waxa weeye in laga tala bixiyo qabi qoraalkan ugu horeeyay aan soo bandhigay oo fursad la siiyo stakeholderska ay arrintan khusayso inay magaranaysaa fikirkooda ka dhiibtaan intaan magaranaysaa qabi qoraalkaasi u gudbin xeer dejinta iyo golaha wasiirada xeer dejinta u gudbin marka runtii halkan ayaan magaranaysaa aan maanta ku falanqeynaynaa aan magaranaysaa isla qaadano in xeerkaasi markaa naga gudbo qabi qoraalkan xeerka naga gudbo marka runtii intaas ayaan kaga baxayaa insha Allah waxaan jecel lahay sanadkan gudihiisa intaanu dhammaan in uu naga gudbo xeerarka qabi qoraalka naga gudbaan xeer dejinta naga gudbaan si xeerkaasi u meel maro oo aynu markaa yeelano xeerar cusub oo casriya oo la jaan qaadaya adduunyada oo hagaya khayraadka dabiiciga